السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kulanti wacan mar lixaad akhyaarta iyo ardayda qiimaha leh ee ku taxan channelka Cabdiraxiim Siciid waa casharadeenii barashada sida loo sameeyo website bilaash ah ama blogger bilaash sida loo sameeyo website-keeni waanu dhisnay waanu ka shaqeynay magac u bixinay oo qurux badnaaday I think sidan ayuu noqday website-keeni classic-gaas ayuu noqday aadka u quruxda badan leh poostooyinkiina weli waanu kusoo qaarweynay ku tijaabinay kusoo guray maanta waxaan rabaa markaa inaan ka hadalno sidee loo soo geliyaa video iyo sida loo soo geliyo linki sidoo kale halkan waxaa kaaga muuqda Facebook, Twitter, Google Plus, sidoo kale email waxaasoo dhan sidee loo soo geliyaa oo loogu soo xidhaa ayaan ka hadli doonaa haddii ay ka dhigo kusoo dhawaada casharka markaa insha Allah waxaan ka bilaabi doonaa bal sida video loo soo geliyo video waa muhiim inaynu soo gelino blogger-keena xagga ugu sareysa ayaad ku qoraysaa iminka sida caadiga ahayd waa poostada title-keedii xaggana waxaad ku qoraysaa waxaad tegaysaa video-ga halkaas weeye insert a video ay ku qoran tahay kadib waxaad samayn kartaa afar option ayaad haysataa mar waa inaad YouTube-ka ka soo gelisid YouTube-ka caadiga waa inaad YouTube aadid markaa oo aad linkiga halkaas soo gelisid marna waa inaad YouTube-kaaga channel-ka adigu aad leedahay aad ka soo gelisaa oo halkaa ka soo keentaa marna waa inaad adigu form-kaaga aad ka soo dejisaa form waa kuwe oo waxa kugu jira mobile device-ka ee computer-kaaga ee kugu xiriirsan Gmail-ka halkaas kala soo degi kartid iyadna ayaa loo baahan yahay inaad soo gelisid intaa waxaa sii dheer inaad video-ga sidiisaba u soo qaadid oo dhex keentid meesha video-ga kaas oo kale oo video waa inaad saa u soo qaadid tusaale saas oo kale kadibna aad meesha dhexda ugu sii deysid waa aad saa ugu soo dhex dhufatid waad samayn kartaa taana laakiin ta ugu muhiimsan waxa weeyaan waa inaad upload ka soo qaadid kadibna aad ka doonatid meeshuu yaallo waxa kaloo dhan waa ka fiican yihiin kuwa iyagana inaad soo geliso laakiin tan ugu sii muhiimsan waa taa ee computer kasta uu ku saamaxayo video waa kaa waanu garanay sida loo soo geliyo waxaan rabnaa imika inaynu soo gelino linkigaas waxaynu soo gelin karnaa laba qaybood inaynu linkiga intaan iskaga dhufanno linkiga halkaa yaala intaan ku dhufanno kadibna linki aynu soo qaadano imika linkiga boosto meelahan taalo kale inoo eeg taasoo kale boostadaas oo kale intaan linkigeeda soo qaadano linkiga ayaan marka hore soo koobiyeysanaysaa copy kadibna waxaad imanaysaa meeshii linkiga halkaas ayaad ku sii deynaysaa waxaad imika laba qaybood taas soo muuqda markaan imika okay iska yiraahdo qof kasta waa linkigan wax kuma arko qoraalo fara badan marka waxaanu samayn karnaa inaynu linkiga aynu marka hore qoraal sii qorno si aad u akhrisato oo kale si aad u akhrisato qoraalkan fadlan guji halkan oo kale ayaan qoray kadibna highlight ayaan saarayaa kalarka waan bedelayaa casaan oo kale ka dhigayaa linkiga markaas ayaan dul tegayaa kadibna waxaan oranayaa control V ama past taqaanin oo kale taa pastda kadibna okay ayaad oranaysaa taasna waa muhiim inaad taabatid open this link in a new window taas aad bay muhiim u tahay inaad taabatid kadibna okay dhe imika waxaad ujeedaa inaan wax linkiga meesha yaala uusan jirin laakiin waad aragtaa inay saxdi tahay oo markaynu imika aynu publish garayno ayaad arki doontaa haddii ayba ka dhigo kadibna bal meeshii ayaad tegaysaa labelka markaa isku toosinaysaa dhamre publish ayaad oranaysaa si aynu u tijaabino bal waxaa iska bedelay blogger-keenii imika waxaa ama poostadii aan soo dhignay waxaa iska bedelay si aan u ogaano okay view markaad tidhaahdid halkan waxaad ujeedaa imika in linki uu sii yaalo si aad u akhrisato qoraalkan fadlan guji halkan waa linki laakiin dii tijaabo imika hadduu tago linki maaha haddaan ku dhufto wuxuu geenayaa meel kale oo window cusub ayuu furayaa kadibna qoraalkii aan soo qaatay ayuu keenayaa snag install oo your service ah ku qorayd ayuu keenayaa kadibna waa kaa wada akhrisan karaysaa
fideogina sidoo kale halkan ayuu soo geli lahaa laakiin fideogii uploadkii weli muu dhammaynin marka sidaa daraadeed waan iskaga nimi waa ka fideogii uploadkii ayuu weli wadaa marka isagana saas ayuu usoo gelayaa waa muhiim inaad ogaatid ta kale aan rabno waxa weeyaan bal halkeen sida loo soo geliyaa Facebook Twitter Google Plus email waxaas oo sida loo soo geliyaa ay rabnaa waxaad tegaysaa theme halkay ku qoran tahay waxaagana kadibna waxaad tegaysaa edit html sidii caadiga ahayd inuu ka edit gareyn jiray ayaa tegaysaa kadibna waxaad oranaysaa control F kadibna waa kan halkan ku soo baxday waxaad soo qaadanaysaa sorry waxbaan masaxay kale marka imika balan soo qaato kan rabo inaan bedelo Facebook oo kale waa ka ama Twitter oo kale waa ka xagga hoose ee browserkeena xaggan soo eega inuu xagga eegina waxaad ku aragtaa your Twitter URL inaysanaybarbar.blogspot.com your Twitter URL ayaa ku qoran kadib waxaan search garanayaa your Twitter URL your Twitter inta baad tiraahdo enter taabatid wana ku soo baxaa meelaha hoose ayaad ka helaysaa marka xaggan waa inaynu ka helaa haddii kale waynu raacinayna si aynu markiiba si dhaqsa ugu helo waxaa ku qoran your/Twitter markaa inta taabatid waxaad aragtaa in halkan qoraalka uu kaaga soo baxay kadibna waxaad oranaysaa intaas ay dul imanaysaa waad tiraysaa intaa waad baabiinaysaa your Twitter yar ku qoran tahay waad baabiinaysaa inta helaysaa u taagin kadib Twitterkaaga aad tagaysaa waxaad tagaysaa halkii aad ka soo dooranaysaa ay ahayd Twitterkayga khayr waa kaas follow waa soo oran karaysaan 100 qof ayaa wada soconaa 6 qofna waa la socotaa kadibna xagga sare ayaad u jeedaa inta sare inta wad ka reebaysaa islaamkii wax ku qoran tahay wad ka reebaysaa inta ka sirab kadib waad soo koobinaysaa inta halka taala inta u sareysa ee profilkaaga copy ee leedahay halkii aad ku soo noqonaysaa paste ee doonaysa kadib waxa ku paste gareynay waxaad oranaysaa save theme waad sugaysaa inuu save garanayo I think you will save gareey barimika aan refresh ilaahdo website keeni ama blogger keeni halka Twitter ay ku qorayd iyo Twitter URL ay ku qorayd imika waxa iska bedelayeen eegno xagga u hooseeya idinku eega ee markoodna eega halkan soo eega halkan xaggan waka iyo Twitter URL waa Cabdirahim Sayid lan ku dhufto imika wuxuu toos ii geenayaa Twitterkayga kadibna qof kasta halkaas ayuu la soo xiriiraya waxa uu jeedaan it is easy and Facebookna waa la mid Facebookna balan soo gelino Facebook Facebook markaan u tago maxaa soo baxaya isaga waxa soo baxaya boqorka laakiin waan soo geliyay laakiin markaan tusaale ayaan idin siinayaa kadib balan yadana ku qoro Facebook oo kale inta ayaa taabanaysaa waa kalkan ka soo baxay kaygii bal marka aan ka jaro waan ka garanayaa imika intaas oo dhan edit html inta soo raacinaysaa waad jaraysaa kadibna Facebookaaga ayaad tagaysaa profilkaaga ayaad dooranaysaa oo kasii tagaysaa profilkaaga halka uu yaalo cidna loo sheegi maayo waa kaas Cabdirahim kaas oo kale tagaysaa marka uu halka isku soo qoro username-kaaga haddii kale aad password-kaaga garanaysidna waa inaad haddii aad garanaysid username-kaaga waa si soo gelisaa laakiin waa ka kaygii imika waan soo koobiyanayaa copy ayaan leeyahay kadibna halkaas ayaan saaranayaa waxaad u oranaysaa paste maanta isticmaala kadibna waa ka toos ayuu imanayaa save theme ayaad oranaysaa waad sugaysaa intuu ka save garanayo kadibna waxaad tagaysaa halkaagii refresh ayaad oranaysaa bal soo geliyay in kale waa ka Facebookgaagii imika halkaas ayuu ku jiraa
toos haddaad ugu tagtid Facebook ayuu ku gelayaa, Facebook ciwaankaagii qof kastana halkaas buu kaa soo dirsan karaa, qof kastana halkaas buu kaa soo xidhiidhi karaa. waa easy ayaan filayaa in la wada fahmayna waan filayaa. insha allahu casharka kusii xiga waxaan rabaa inaan kusoo qaadano waa inoo dhammaynay sida loo soo dhiso, sida loo qurxiyo. waxaan kusoo qaadanaynaa qaybtii mobilka disable baa ku aragtaa. insha allahu qaybta mobilka ayaan rabnaa inaan kusoo qaadano, iyo sidoo kale inaan kusoo qaadano sida lacag looga faa'iido. labada qaybood iyo qayb saddexaad iyadna inoo hadhay sida pages loogu sameeyo. pages oo page ayaad u samaynaysaa website-kaagii dhowr page-a. page-ka waxaad oranaysaa kale wararka, waa website caadi oo isna gaara. page-ka arrimaha bulshadana sida waxa weeyaan waa mid gaar oo page gaara. insha allahu 3 cashar ayaan kusoo qaadan doonaa. fadlan akhyaarta waxaan idinku codsanayaa inaad share garaysaan mar kasta oo sheerta idan ilaawin. wixii ka dambeeyana insha allah waxaan bilaabi doonaa casharo kale. haddii kan wax ardaydu ay ka soo celiyaan feedback oo ku adkaadan insha allah waan ku soo celin doonaa. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.